الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa marti sharafta isugu timi dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan halkan waxaan ka hambalyeynayaa waan uga mahad celinayaa waxqabadkii aanu wada qabanay muddadii aan xilka hayay badha saabka gobolka Saraar maamulka kale ee degmada iyo dhammaan madaxda gobolka Saraar waxaan kale halkan aan uga mahad celinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ugu horeeyo wasiirku agaasimaha guud wasiirka hore wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadka muddadii aan wada shaqaynaynay wada shaqaynta wanaagsan kale aan halkan uga mahad celinayaa wasiiradii gobolka oo run ahaantii la'aantood aan waxba qaban kareen oo icaawiyay sidii ay wax ugu qabsoomi lahaayeen wasiir maxamed xaaji aadan Saleebaan Warsame Guray waxaanan ilaaweyn egas wasiir Hinda oo run ahaantii wax badan gobolka ka qabatay haday tahay wasaaraddeedii oo ay run ahaantii ka dhistay iyo wasaaradaha kale oo ay run ahaantii nala shaqayn jirtayba waxaan kale halkan uga mahad celinayaa hay-adihii gobolka aan ka wada shaqayn jiray sida hay-adda Bisha Cas oo run ahaantii naga caawin jirtay waxyaalo badan al'aanadaana caawiso iyadoo kontraagii uu ka dhamaaday xanaanada oog u wada dawooyinkii iyo feedingii waxaan celinayaa hay-adaha kale ee gobolka nagala shaqaynayay sida Care World Concern oo nutrition bixiya iyo laamaha kale ee aan wada shaqaynta lahayn waxaan kale halkan uga mahad celinayaa hay-adihii gobolka aan ka wada shaqayn jiray sida hay-adda Bisha Cas oo run ahaantii naga caawin jirtay waxyaalo badan al'aanadaana caawiso iyadoo kontraagii uu ka dhamaaday xanaanada oog u wada dawooyinkii iyo feedingii waxaan kale halkan ka mahad celinayaa xanaanada hay-adda Save the Children oo run ahaantii wax ballaaran gobolka ka qabatay min family health workers ilaa iyo cisbitaal run ahaantii isku xidhiidhsanaa oo uu hogaamiye ka ahaa inanka la yiraahdo Mustafa waxa la magacaabay kowdii bishii 7 2019 ilaa iyo yawmina hada inta waxa ii qabsoomay waxaan ugu imi gobolka caafimaadkiisu wuxuu ahaa 4 xanaano iyo cisbitaalka TB centerka ayuu ahaa iyo 5 health boss run ahaantii xanaanooyinkii way kordheen 3 xanaana ku soo kordhay waxa ku soo kordhay xanaanada waridaad oo ay joogto hay-adda care joogto wariir oo run ahaantii iyaduna furantay oo ay haysato hay-adda Save Children ceegaag oo ay haysato hay-adda Save Children waxa kale noo furmay mobile team mara dhul badan oo Saraar ka mid ah 10 tuulo oo Saraar ka mid ah oo dhulka shishe ee fogfog ee aan xanaanooyinka lahayn waxa kale ee dhacday oo aanu sameynay oo horumar ahaa ambalaasyada gobolka oo fadhiyay markii ay hay-adda GED ka baxday oo aan lahayn wax qarshiyaada oo u diyaarsanaa labada ambalaasba dib u habeyn baanu ku sameynay dhaawac weyn baa gaadhay mishiinada labadaba wada duqeeyay waxaan sameynay muxsiniinta gobolka iyo gobolka Togdheer oo aanu la kaashanay waxaan labadiiba waanu kicinay hadda labadiiba way shaqaynayaan waxyaalaha kale ee gobolka Saraar intii aan joogay run ahaantii soo gaaray waxa kamid ah COVID-19 talaalkii COVID-19 ka oo dad 2800 oo qof ay ka qaateen talaalka waxaanu helay mashiin TB centerka yaala imika oo la yiraahdo Gene Expert mashiinkaas oo aad iyo aad u muhiima lagana yaabo gobolada waaweyn qaarkood inaanay oolin xafladanaynu isugu nimi xafladanaynu joognaa waxa weeye xaflad xil wareejin waxaan ku wareejinayaa haddii Ilaahay ka dhigo isuduwaha cusub ee uu soo idmada wasiirku waxaan ku wareejinayaa 2 cisbitaalka Caynaba iyo cisbitaalka Og waxaan ku wareejinayaa 7 xanaano oo kala ah xanaanada Caynaba Og Wadaamago Waridaad Wariir ceegaag 4 gaari ayaan ku wareejin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo 2 way shaqeeyaan waa 2 ambalaas hal ambalaas wuu fadhiyaa xaajiyadina way fadhidaa 2 marka aan shaqayn iyo 2 shaqeeya 4 gaari baan insha Allah ku wareejin doonaa waxaan ku wareejin doonaa 2 akoon oo akoonna uu leeyahay degmada Dhanaano midna ay leedahay degmada Waridaad oo lacag ku jirto oo GED ay kaga tagtay lacagtaas oo aan baahi noo qabanin oo sidoodii isugu jira akoonnada akoonka Dhanaano waxa ku jira 6,614,000 halka akoonka Waridaadna uu ku jiro 10,177 shaqaalaha gobolku waa 199 shaqaalaha waxa bayrolid ah 34 inta kale waa non bayrolid insha Allah bidnillahi karim waxaan ku rajo weynahay
isuduwaha cusub inuu shaqaalaha kale u dadaalo. Caynaba hospital waxa ka shaqeeya 52 shaqaale ah. Caynaba health center waxa ka shaqeeya 16 shaqaale ah. Caynaba TB center waxa ka shaqeeya 6 qof. oog waxa ka shaqeeya 14 gowsaweyne waxa ka shaqeeya 10 qof. wadaamago waxa ka shaqeeya 14 qof. waridaad waxa ka shaqeeya 10 qof. ceegaag waxa ka shaqeeya 15 qof. dhanaano waxa ka shaqeeya 4 qof. ceelal 4 qof baa ka shaqeeya. mobile team ka ay haysato hay'adda Safe Children waxa ka shaqeeya 8 qof. SRCS mobile team waxa ka shaqeeya 4 qof. Care mobile team waxa ka shaqeeya 5 qof. Family health workers qolyo la yiraahdo oo daryeelayaal ahina waxa weeye